ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada warkii warbaahinta wadaagsan oo aan hadahan oo kale idiin soo tabin jirnay waa 27 Juulaay 2019 qodobada ugu door koron ee warkanana waxa kamid ah Soomaaliland oo arrin xasaasi ah ku waayi karta taageerada beesha caalamka wasiirada dawladda federaalka ee Puntland ku soo jeeda oo dhaqaale iyo lacag ku celiya Puntland Imaaraadka Carabta oo qaaday talaabo ka dhabarjab ku ah Sacuudiga Ilhaan Cumar oo saygeeda iska furi rabta xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka oo shaaciyay in farmaajo iyo khayr ay al-shabaab gacanta u gali kareen dawladda federaalka Soomaaliya oo laba arrin sugaysa si ay doorashada Jubbaland ay u farageliso daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu door koron ee warkeena haatan ku soo dhawaada isagii oo fidsan fadlan daawada waxa iga xasuusinaa inaad subscribe aadan hilmaamin gambaleelkana daarata si ay ku soo gaaraan wax walba aan soo galin boqor Cismaan Buurmadow oo kamid ah madax dhaqameedka Soomaaliland ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliland iyo xaaladda guud ee ka jirta deegaanada Soomaaliland boqor Buurmadow ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka looga baahan yahay in doorashooyinka ay waqtigooda ku qabtaan haddii kale ay Soomaaliland waayi doonto taageerada iyo tixgelinta ay ka hesho beesha caalamka Buurmadow ayaa sidoo kale wuxuu ka hadlay xiisada ku dhaxaysa xukuumadda iyo jabhadda uu hogaaminayay Korneyl Caare isagoona baaq u diray madaxweyne Biixi kuna yiri dalku xaaladda uu marayo hadal badan uma baahna dadku wuxuu u baahan yahay dalkuna wuxuu u baahan yahay dhowris iyo xanaano fara badan xukuumadda iyo xisbiyada waxaan u soo jeedinayaa laba arrin oo taagan oo mid doorashadii caalamka inay u tixgelinayay ahayd inta qudhay aynu naruulo lahayn ama caalamku inuu soo joogsanayay waa doorasho haday inoo dhicoodina waxaynu noqonaynaa dad caalamkuna indhaha kala noqdo wuxuu intaas ku daday arrin kale ee hadda taagan ee buurta ee la leeyahay waa la soo fadhiyaa labadaba tanaasul iyo nabadgelyo ayaan xukuumadda iyo dadka ehelka ah ee aan walaalaha nahay ugu baaqaya madaxweynaha iyo xukuumadda waxaan leeyahay arrimaha taagan oo dhan mid dhibaato ah noqoto ama cid mucaarada ku ah dawladda ha noqotay ama arrin siyaasadeed oo doorasho ah ha noqotay inay dhimriso oo dejiso ayaan kula talinayaa wasiirada ku jira dawladda federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda deegaanada maamulka Puntland ayaa qaaday talaabooyin aan lagu aqoonin wasiirada kale ee xukuumadda Soomaaliya ee ka soo jeeda gobolada kale ee dalka wasiiradan oo gaaraya ilaa 3 xubnood ayaa dhowr jeer shirar ku saabsan wasaaradaha ay hogaaminayaan ku qabtay magaalada Garowe ee xarunta Puntland waxaana ka soo qayb galay tobaneeyo dad ah oo ay ku jiraan wasiirada maamul goboleedyada dadku wasiirka qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa ugu horeeyay xubnahaasi oo marar badan magaalada Garowe ku qabtay shirar ku saabsan wasaaradiisa iyo waxqabadkeeda waxaana dadkii ka qayb galay ka kala yimaadeen gobolada iyo deegaanada maamul goboleedyada dalka muddada uu socday shirkaasi waxa ka faa'iideystay ganacsatada Garowe siyaasiyiinta dhalinyarada iyo haweenka oo qaarkood marti ku ah shirka hoteelo badan ayaa laga kireystaa magaalada Garowe maalmaha ay shirar ku socdaan gaadiidka ayaa sidoo kale aad loo kireystaa warbaahinta ayaa ka harsa fursado shaqo halka ay ciidamada iyo qaybaha kale ee bulshadu helaan fursado muhiim ah wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya Sadiiq Warfa ayaa sidoo kale shirkiisa ugu horeeyay ee ku saabsan shaqo abuurka Soomaaliya ku qabtay halkaas waxaana ka qayb galay wasiirada maamul goboleedyada iyo ururada shaqaalaha iyo dad kale oo aad loogu marti qaaday shirka waxa ay shacabka Puntland ka faa'iideen $10 kadib markii ay heleen fursado ganacsi iyo kuwo kale oo muhiim u ah deegaanadooda shirkii ugu dambeeyay waxa Garowe ku qabtay wasiirka kalluumaysiga Soomaaliya Cabdullaahi Bidhaan wuxuuna shirkaasi ku saabsanaa horumarinta ganacsiga iyo kalluunka iyo kheyraadka kale ee badda dhex eegaaga qalad ma aha in wasiirada dawladda federaalka ee ka soo jeeda Puntland ay daaganadooda ugu faa'iideeyaan shirarka iyo fursadaha ay helaan balse waxay muujinaysaa inay ka ildheer yihiin wasiirada kale ee xukuumadda Soomaaliya haddii wasiirada kale ee xukuumadda Soomaaliya shirar ku qaban lahaayeen magaalooyinka Baydhabo Jowhar Kismaayo iyo Dhuusamareeb waxay noqon lahayd fursado muhiim ah iyo shaqooyin kale oo fudud sidoo kale waxay qayb ka noqon lahaayeen dejinta nidaamka federaalka Soomaaliya ee ka warqabka deegaanada ay ka soo jeedaan Imaaraadka Carabta ayaa qaaday talaabo kale oo dhabarjab ku ah Sacuudiga isla markaana wafdi u diray dalka Iran oo Sacuudigu u loolan siyaasadeed kala dhaxeeyo Xuseen Dhaqan oo la taliya hogaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatollah Al-Khamenei ayaa shaaca ka qaaday in mas'uuliyiin Imaaraadka ka tirsan ay wafdi u soo direen Tehran si ay uga hadlaan xiisada ka taagan gacanka talaabada Imaaraadka ee ku wajahan Iran ayaa tii labaad oo dhabarjab ku ah Riyadh oo ay xulafayeen Abu Dhabi wax ka yar 2 bil iyadoo Imaaraadku ay hore inta badan ciidamadooda uga soo saareen dalka Yemen dhaqan ayaa sheegay in Imaaraadka noqdeen xudunta weerarada Mareykanku uu ka qaado danaha amniga ee Iran sidaa darteedna ay ogyihiin waxa looga baahan yahay si ay fariin wadaad ugu diraan shacabka Iran Imaaraadka ayaa garowsan in dagaal kasta oo lagu qaado Iran uu horseedi doono in Iran ay beegsato magaalooyinka Dubai iyo Abu Dhabi ay gantaalo ku garaacdo waxay iska dayaysaa inay xiisada qaboojiso wargeyska Daily Mail ee dalka UK ayaa qoray in Ilhaan Cumar iyo saygeedu ay kala guureen isla markaana ay ku guda jiraan hanaana isku furayaan Daily Mail ayaa warbixin gaar ah oo qoray ku sheegay in Ilhaan ay ceyrisay saygeeda Ahmed Xirsi oo markii ugu horeysay ay isguursadeen sanadii 2002
balse isfureen 2008 kor inta aysan mar kale dib isugu noqon. wargeyska ayaa sheegay in Ilhaan ay hadda ka guurtay Axmed kuna noosha dhismo qaali ah oo ku yaala Mile District oo xaafadda ku tirsan Minneapolis. waan ka xumay waxba kama onkoro arrintan ayuu yiri Axmed Xirsi oo Daily Mail ay wax ka weydiisay. sidoo kale Ilhaan Cumar ayaa wax jawaab xiriir ah la sameeyay Daily Mail. Axmed Xirsi ayaa hadda kaliya isku nool guriga ay wada deganayeen isaga iyo Ilhaan haysa yeeshee wuxuu tagaa guri cusub ee Ilhaan ay kireystay markii uu ka maqan yahay magaalada Washington halkaas oo ay xubin ka tahay Congress-ka Mareykanka. Axmed Xirsi ayaa sidoo kale xaaskiisa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Minneapolis markii ay toddobaadkii tagtay ka soo laabatay Washington. arrintan ayaa imaanaysa iyadoo Ilhaan Cumar ay wajahayso eedeymo aan weli cadeyn loo hayn oo xubnaha jamhuuriyiinta ka mid ah ay ku sheegeen inay si been u guursatay walaalkeed si ay u keentay dalka Mareykanka. Xildhibaan Daahir Amiin Jesow oo ka tirsan xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre iyo dhaqaale iyo shaqaale kale ay halis galeen isla markaana ay si dhib uga baxsadeen al-shabaab. Jesow ayaa sheegay inuu aad uga walwalsanaa xaaladda madaxdan balse uu alle ka soo badbaadiyay hadda wixii ka dambeeyana ay ka feejignaan doonaan inay dib ugu laabtaan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayuu sheegay in xildhibaan Daahir Amiin Jesow inay maamulaan al-shabaab isagoo Axmed Madoobe ku tilmaamay garab ka mid ah al-shabaab. Axmed Madoobe waa al-shabaab waxaana khatar galay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka balse alle ayaa soo badbaadiyay ayuu yiri xildhibaan Daahir Amiin Jesow oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Axmed Madoobe waa hogaamiyaha garab ka mid ah al-shabaab wuxuuna aaminsan yahay fikirkooda sababtoo ah waa inuu ajaanib ku tilmaamay dadkii ku dhintay weerarkii Kismaayo ayuu hadalka sii raaciyay xildhibaan Daahir Amiin Jesow oo ka tirsan golaha shacabka. dhinaca kalena xildhibaan Jesow ayaa sheegay inuu rajo ka qabay inuu tago magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose inta uu ka shaqeynayo maamulka Axmed Madoobe oo ku tilmaamay garab ka mid ah al-shabaab. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si gaabis ah dusha sare uga eegaysa xaaladda doorashada ee ka jirta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. weli si toos ah ma aysan faragelin arrimaha doorashada balse waxa arrintaasi lagu macneeyay laba ujeedo ay ka damacsan tahay dowladda Soomaaliya kuwaas ay horseedi doonto inay ka yeelato sida ay rabto. saraakiil ka tirsan Villa Soomaaliya ayaa wadaagsan u sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay Jubbaland faragelin doonto marka ay xaaladdu adkaato kadibna ay si fudud ula wareegi doonto xaaladaha doorashada. dowladda federaalka waxay raadinaysaa qalalaasyo ka bilowda Jubbaland oo ay noqoto lama huraan inay farageliso kadibna ay la wareegto maamulka iyo hanaanka doorasho maadaama ay tahay dowladda dalka. sidoo kalena dowladda federaalka Soomaaliya ayaa damacsan in si toos u farageliso Jubbaland markii ay meel gaar ah istaagaan musharaxiinta si loo wado doorashada isla markaana Axmed Madoobe lagu marqaatiyo beesha caalamka si fudud ay dowladdu ula wareegto doorashada. arrimahan ayaa waxa lagu macneeyay in dowladda federaalka Soomaaliya ay hore ugu caawido doorashada ka dhacday Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaana aysan ku degdegi karin arrimaha doorashada ee ka socda deegaanada maamul goboleedyada dalka. maamulka Axmed Madoobe ayaa wada doorashada waxaana hogaamiyaha maamulkaas uu ka mid noqday musharaxiinta isdiiwaan gelisay oo qaatay shahaadada musharaxnimada. dowladda Soomaaliya ayaa hore u soo saartay habraaca doorashada inkastoo maamulkaas ka soo horjeestay musharaxiinta ugu saameynta badan ayaa ilaa hadda ka qayb galin diiwaan gelinta iyo shaqada socota. daawadayaal intaasina waxay hayeen qodobada ugu door koron ee warkeena inta aan warkaan mid ka xiiso badan ku kulmi doono waxaan idin kaga tagnaa sidaas.